warbixintan waxaan ku eegi doonaa ninka ugu da'da weyn adduunka oo yiri ma jirto sir ka dambeysa cimri dhererka. Ninka ugu da'da weyn adduunka ayaa shaaca ka qaaday inaysan jirin sir gaar ah oo ku soo gaaray cimrigan xilli uu u dabaaldegayay 112 sano jirkiisa. John Tinsworth oo ku dhashay magaalada Liverpool taariikhdu markay ahayd 25 Agoosto 1912 ayaa u sheegay Guinness World Records in uusan wax fikrad ah ka haysan gabi ahaanba sababta uu u noolaa muddada intaa leeg. Ninkan ugu cimriga dheer ayaa taageera kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxa uu ku nool yahay guri dadka lagu daryeelo oo ku yaala Southport. Ninkan ayaa noqday qofka ugu da'da weyn adduunka bishii Abriil kadib markii uu geeriyooday John Vincent Peters-Mora oo 114 sano jir ahaa. Waxa uu sheegay inuu ahaa nin aad u firfircoon markii uu yaraana uu sameyn jiray socod badan, laakiin waxa uu rumaysnaa in dad kale uusan waxba ka duwanaan. Waxa uu intaa ku daray, waa noolaan kartaa waqti dheer ama waqti gaaban, laakiin waxba kama bedeli kartid wax kasta oo ku saabsan. Master Tinsworth oo dhashay sanadkii uu degay ama quusay markabkii Titanic ayaa sheegay in uu dib u xasuusanayo noloshiisii hore. Sababtan u noolahay muddadaasi dheer wax fikrada kama haysto ayuu yiri, ma jiro wax gaar ah oo aan sameeyay ayuu sii raaciyay. Aad ayaan u firfircoonaa yaraanteedii, socod badan ayaana sameyn jiray, mana garan karo intaasi ay ku lug leedahay in kale ayuu yiri, laakiin aniga ma jiro wax aad dadka ugu duwanaa, wax gaar ah ma jirin ayuu yiri. Master Tinsworth waxa uu sidoo kale uu dhashay 20 sano kadib markii la aasaasay kooxdii uu ugu jeclaa kubadda cagta Liverpool. Waxa uuna taageerayay tan iyo inta ay qaadanayeen koobabka marka laga reebo 2 xilli ciyaareed oo ka horeeyay dhalashadiisa, waana marka ay ku guuleysteen qaadista 2 horyaal oo kala ahaa sanadihii 1901 iyo 1906. markii uu qarxay dagaalkii koowaad ee adduunka waxa uu jiray 2 sano, sidoo kalena xilligii uu u dabaaldegayay 27 sano jirkiisa ayuu bilaabmay dagaalkii labaad ee adduunka. Waxa uu ka soo shaqeeyay ciidamada gaarka ah, waxa uu door weyn ka qaatay mushaaraadka ciidanka, isku dubaridda iyo sidoo kale aasaasidda, balse waxa uu ka badbaaday dagaalkii labaad ee adduunka. Xaaskiisa ayuu ka bartay goob ku taala magaalada Liverpool oo lagu ciyaaro qoobka ciyaarka, waxa ayna isguursadeen 1942. gabadhooda la yiraahdo Susan waxa ay dhalatay sanadii 1943. lamaanahan ayaa ku faraxsanaa noloshooda ka hor inta aysan dhiman xaaska ninka 112 sano jirka sanadii 1986. dagaalkii labaad ee adduunka kadib waxa uu xisaabiye u ahaa Shell iyo PPP ka hor inta aanu ka fariisan sanadii 1972. waxa uu sheegay inuu cuni jiray kalluunka iyo sidoo kale baradhada oo uu cuni jiray jimco kasta, balse uusan lahayn wax nidaam u gaara. waan cunaa wax kasta oo la ii keeno, waxaana la mid ahay dadka kale, mana jiro wax ii gaara ayuu yiri. tan iyo markii uu gaaray da'da 100 sano jirka sanad kasta dhalashadiisa waxa uu kaarka dhalashada uu ka helay jiray boqortooyada, waxaana markii ugu horeysay siiyay boqorada Queen Elizabeth. mar wax laga weydiiyay waxa uu maleynayo in dunidu ay wax badan ay iska bedeshay tan iyo caruurnimadiisii. waxa uu sheegay inaysan jirin kala duwanaansho ra'yigiisa ama in ay wax badan ay iska bedeshay. waxa uuna raaciyay in hadda dunidu ay ka adag tahay tii hore, ama ay adag tahay in ay fiicnaato sidii ay ahayd waagaasi. meelaha qaar waa ay jirtaa, laakiin meelaha kale waa ay ka sii daran tahay ayuu sii raaciyay. ninka ugu da'da weyn ayaa ahaa Jiron Komura oo u dhashay Japan, kaas oo gaaray da'da 116 sano iyo 54 maalmood. waxa uuna dhintay sanadii 2013. haweeneyda adduunka ugu da'da weyn waa Timiko Itoka oo 116 sano jir ahayd, waxayna u dhalatay dalka Japan. intaas ayaan ku soo gabagabeynaa warbixintii aynu kaga hadlaynay ninka ugu da'da weyn adduunka oo wax laga weydiiyay sirta ka dambeysa cumri dhererkiisa, hase yeeshee sheegay in uusan waxba kala socon. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.